Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ama daawadayaal waxaa kusoo dhawaataa casharkeenii koowaad ee Englishka. Casharkeenu maanta waxaa ku saabsanaan doonaa nouniska ama magacyada. Nouns iyo pronoun wax la yidhahdaa jira way kala duwan yihiin dabcan sina way isugu egyihiin, laakiin maanta waxaa bilaabi doonaa casharkeena luqadda Englishka ayaan u horumarinay maadooyinka maadaama muhiim ay u tahay ama asaas ay u tahay maadooyinka badankood. Nouniska waxaa loo qaybiyaa afar. tan koowaad waxa weeyaan oo la yidhaahdaa proper noun. Tan labaadna waxaa la yidhaahdaa common noun. Tan saddexaad waxaa la yidhaahdaa abstract noun. Tan afraadna waxaa la yidhaahdaa collective noun. haddaba waxaan guda geli doonaa qaybteena Englishka ee grammarka. qaybtan kolleyba grammarka ayaan soo horumarinay inta badan buugaagta saa u horumariya, laakiin waxaan ku hoos wadi doonaa isla markaas grammarka iyo verbal Englishka labadaba waa isku garab wadi doonaa si marka ay u fududaato barashadiisu. inta badan waxay sameeyaan qaar grammarka bilaaba, qaarna waxay sameeyaan verbalka, laakiin labada in isku garab wado ayaa fiican. Nouns waa kuwa ugu horeeya ee grammar ama buug kaste ama luqad kaste nouns ayaa u horeeya. Nounsku marka waa magacyo, waa names. qaybta koowaad marka haddaan soo qaadano oo ah proper noun. qaybtan waa qayb gooni ah, cid gooniya iska leh, meel gooniya iska leh, ama qof gooniya iska leh, ama xayawaan gooniya. adiga laftaada magac baa leedahay, magacaas waa magac proper noun ah. proper nounka mar walba waxay ku bilowdaan magac capital ah, xarf capital ah, capital letter ayay ku bilowdaan. saas daraadeed waxaa la yidhi proper noun are capitalized in the initial name. magaca ugu horeeya ayaa la capitalize garaya ama la weynaya. proper nounskaas tusaale ahaan waxaa noqon kara baan niri afar qaybood bay iyaguna usii baxaan sidii nouniska ay ugu baxayeen afar ayaa proper nounskuna waxay u qaybsamaan afar kale. afartaa maxay kala yihiin? kow waxaa la yidhahdaa place, proper noun of a place. proper noun of person ama people, dad baa iska leh. proper noun of thing, shay. iyo afar oo ah proper noun of animal. qaybta marka koowaad waxaan ka dhigaynaa place ayaa soo qaadanaynaa tusaale ahaan examples of proper noun of place. taas proper nounka meel waxay noqon kartaa meel kasta oo magac gooniya leh laguna aqoonsado magacaas, sida magaalooyinka oo kale, Jigjiga oo kale haddaan yiraahno oo kale, Boosaaso oo kale, ama magaalo kasta dee waxaa rabta aduu dheh. taa waa example-ka proper place. proper place marka waa inaad weyneysaa magaca koobaad. Boosaaso hadaad dhigeysid ba'da waa inaad weyneysaa ama bida. Boosaaso, Muqdisho hadaad dhigeysid sababta proper noun oo dhan magacyadiisa waa la weyneeyaa magaca xarafka ugu horeeya. tusaalaha kale ee xiga waxa weeyaan people, dad. proper noun of people,
taa waxay noqon kartaa qof kasta magaciis, magacaaga hadduu Axmed yahay, hadduu yahay maxamuud ama maxamed, hadduu yahay farxaan, magac kasta oo qof leeyahay gooni u leeyahay baa waxaa la yidhaha proper noun, isla markaana capitalized waa in laga dhigaa. tan kale oo ku xigta waxaa weeyaan ee saddexaad, proper noun of things. halkan proper nouns ay iska leeyihiin weeyaan waxyaalaha aan nafta lahayn, sida Jupiter oo ah mayro magacii, Saturn oo kale, journal magaciisa oo kale, meel ma ahan, journal magaciisa hadda qorsho, journalka waa shay, the guardian baa oran kartaa tusaale ahaan, saas u wad dhib ma leh. tan ugu dambeysa waxaa weeyaan animal, proper noun of animal, xayawaanka magacyo haddii leeyihiin loogu yeero, iyadana waa un dhigaysa adaa intaa yaqaana, dhib ma leh. tusaale waxaa kasoo qaranay Joshua waa ey magaci, iyada magacyadood goonida loo siiyo ama xayawaanka proper noun of animals baa la yidhahdaa. marka mar walba waxay ogaataa, waxaa xasuusnootaa mar walba notice ama note waxaa qaadataa ah proper nouns. dad waxaan arkay gaabinaya xarafka koobaad, lama gaabinayo, capitalized weeyaan, capitalized hadduu xayawaan yahay, hadduu meel yahay, wax kasta waa in la weyneeyaa. hagaag daawadayaal, intaas ayaa casharkeeni kusoo gabagabeyn doonaa.